qoyskan danyarta oo ku nool magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Maxamuud ee xaafada calaamadaha waxa ay dhibaato ka soo gaadhay roobkii weynaa ee dhawaan ka da'ay magaalada Hargeysa kadib markii meel kasta laga soo xidhay dhulkii ay biyuhu mari lahaayeen oo la dhistay daadku waxa uu wada qasaba ku banaystay halkii ay deganaayeen ee hoyga u ahayd isagoo dhamaanba burburiyay gurigii ay ku jireen isla markaana ka qaatay wixii agab u yeelay hooyada iyo aabaha qoyskan ayaa waxa ay ka warrameen dhibaatada ka soo gaadhay daadkii ku soo fatahay gurigii ay ku jireen waxaana ay codsadeen in loo soo gurmado weyninka arkaya assalaamu calaykum waxaan u sheegayaa ummadda reer Somaliland inuu daadna qaaday gurigiina naga dumiyay naf iyo maal naftii aanu kala baxnay oo guriga naga dumay banaanka aan fadhino wax cidahoo noo timid ana arag guriguna xaafadana waxa ku talaa meel yar qaloocan xaafadaha in calaamada geesta galbeed xabaalaha ayeen xagga ciidinaga xigin xabaalaha mooyaan waxaan umada reer Somaliland ka codsanayaa madax iyo shicibba inay hoos noo eegaan waxaan hooyo carruur dhashay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ahay guriga masiibada ku dhacday ninkii lahaa ee ka mas'uulka ahaa ayaan ahay waxaana galay roobkii abeestaxaadkii da'ay qaybta istaar xagga galbeed ee masaajidka Jibriil Bootaan xagga galbeedkeeda xigta ayaan deganahay meel luuqan ku jiraado daaraha iyo xaggan ayuu dadku naga soo xigaa waxa weeye markaa wadada bundayar baa meesha biyihii la iska soo wada duway ee bundada yari markay buuxsatay roobkii hore uu buuxiyay ayaa qaybtii dambe roobkii habeenimo uu daay kii dambana uu ku daray waxa weeye waddo male meel walba waa la dhisay meel walba ciid baa la iska dhigay waxa weeye markaa maayirka waxaan leeyahay iyo dawladda cidina ma nooma iman namana arag meel waxaan ku jirnaa waddo yara qaloocan ayaan ku jirnaa waxa weeye wax cidoonu aragnay iyo wax noo yimid iyo wax yiri maxaa dhacay oo noo yimid ma jiro sayada gaadhay waxa weeye gurigu waa ka daadku u qaatay shay la kama naasaarin dirqibaan kaga baxan ciyaalkii iyo dumarkii aan dalka kaga saaran dadka la jaarka ah qoyskan uu daadku qaatay ayaa waxa ay ka warrameen dhibaatada qoyskaasi soo gaadhay waxaana ay baaq u direen xukuumadda ganacsatada iyo dadka samafalayaasha ah si loogu soo gurmado qoyskaasi danyarta ee ay dhibaatadu ka soo gaadhay roobabkii dhawaan ka da'ay magaalada Hargeysa halkan waxaan kala hadlaynaa dawladda Somaliland iyo walaalaha iyaga muslimka Soomaaliyeed ee Somaliland waxaan u sheegaynaa reerka inuu daad qaaday oo halka xabaalaha ay u dhow yihiin iyagana laga soo reebay waxna aan ugu harin dharkoodii waa kuwa dhulka daadsan waa waxa alaabtoodii iyo wuxuu qaatay marka waxaan doonaynaa in loogu soo gurmado reerkaas sida ugu dhaqsaa badan leh loogu soo gurmado oo wax loo taro ilaahay baa wax tara u soo gurmada walaalaha iyaga muslimiinta ah reerka loo soo gurmado iyo dawladda madaxweynaha maxaa la yiraahdaa maayarka intaba waxaan u leenahay iyo madaxda oo dhan u soo gurmada dadka ku dhaceen masiibo daadku waa masiibo laga ducaysto calaamadaha ay ku taala halka istaaragteeda ay ku taala calaamadaha reerka loo soo gurmado walaalahayo waxaan leeyahay reera masiiba heshay daad baa la tagay carruurtii dirqi baa lagaga reebay waxa duunaha iyo wax maali midna uma baxsan ayaan leeyahay waxaan doonayaa oo baaq u dirayaa baaq horsare iyo baaq dhowba dawladda madaxweynaha maayirka ayaan doonayaa dawlad dhexe iyo dawlad hooseba waxaan leeyahay reerka masiibadu heshay waa masiibada loo gargaaro walaalahayo ha loo kaco ayaan anigu leeyahay masiibadu waxay ku dhacday daadkii baa ku soo rogmaday aqalka ku jira oon seexan oon wali aan la seexan daadkii baa nagu soo rogmaday markuu nagu soo rogmaday tag baa ku soo furmay aqalkii ay ku jiraan ayuu huflayay carruurtii dirqi baa lagaga badbaadiyay xaafadda ku dhow baanu nahayo annaga u baxnay carruurtii nalagu soo daadgureeyay habeenkii halkii baan wada joognay waxa weeye reerka masiiba ku habsatay masiibadana waa la isaga gargaara waxaan leeyahay baaq dawladda tu dhexe iyo tu sare iyo madaxweyne iyo maayirba fadhiga ha laga kacaan anigu leeyahay